gabadha hadda maqlaysa bal waxaad noo sheegtaa halka aad joogtaan iyo dhibaatada aad la kulanteen أنا واحد جمنا سعودي عربية جارهان جد حافظ الرياضة جمنا قميصي كمبنيا فمان نقصوا خيانة نقصوا مركا مثلا نركن أفر الوقت ساعة قميصي توني أوليا فوقي نايا اللي حوالنا نركن dhibaatooyinkaas aad la kulanteen haddii aan mid u kala qaadno gabdhaha la kufsaday oo aad noo sheegto oo idinka midka waa imise ruux أبواب الصومالية وما أنت لو أركض تدري كررت موقود جيران بدنا وحوا إندونيسيان كي يكون كلام مساكينش على كفر الصومالي كستو ضد سكول حرن إيه ما أنت لكن جدّاه جو بدين إنه حفرت نيد كان حلم رواي جوينه كهان هاي marka walaal meeshaan aan ku jirnaa dadkeena ehelkeena waxba nagama oga telefoon nolama ogolahay 24 saac niman oo 20 jiryaal waaweyn inaan qolal nagu soo xirtaan tumaayeen sida ariga oo kale marka shaqada markii hore la idin geeyay dalka Sacuudiga la idin sheegay maxay ahayd anaga awal shaqada Soomaali ko nala soo bandhig waxaana la dhahay Soomaaliya saana jirto program waxa 24 saac istiraha ku noolaanaysiin waa soo shaqaysanaysiin 2 sano waa hal sano waa soo laabanaysiin qalbin oo fasaxa nilsiina xajiga niligeena waxwo ni gumeysanaay malahan telefoonada nilsiya maalinta garoonka nigil dejinay dadka oo carab ani kala wadanaysa gurihiin ni kala geeysanaysa dadka aan la dhahay haye marka xagga marka aad tagteen oo la idin geeyayna maxaad la kulanteen xagga marka aad tagno maalinta garoonka soo degeynay haye maalinta garoonka soo degeynay waxa gabdho badan 22 ruux laba group waa nala soo kala wada group way naga soo horreeyeen groupna way dambeeyeen ani groupka dambe ku jiray maalintii nala soo wadin waxaa la kulanaba inaa gumeysi sida nala soo wada guriga nagu xiray haye guri saddex dabaqo saddex diyaana nagu xiray moobelada soo aruuriya nala dhahay moobeladii wadamadeena kasmaan nolosha ku jirna nagala qaaday haye bas markii daba moobelada nagala qaadan gabdhiida moobelada dhiibay maxaa waay meesha maxaa waay shaqo guriga sugayna qof walba markoo dhaani ماشي أفر الوقت تاع قميص سوحي الأستاذ أنا قلت كيف لأن الله تعادي أنا قلت شو أجي قوون قلت شو أنا لطمة واقرتي مركا حرادة aad ku jirtaan maxaa lagu qabtaa idinka markii subaxdii aad soo toostaan maxaad qabataan ma la idin tababaraa ma shaqo sugayaal baa tihiin ما أنت كان لمن إن العرب له دحجوجا wax Soomaali ama wax safaarad oo noo dexjoogana malamaan tinilso walaana waxaan la Soomaaliya meesha joogto safaarada joogto dad oo waxa tiin oo qaraabo oo micnaha oo madax soo dirtay cid wax leedin karta malaan ilaa hadana wax Soomaali sheen masaar Soomaali magaceeda ku diimoonaago mucaamilka dadka cumaasha ah ee lagu dhaqmo wadanka Sacuudiga inay ma aad u hooseyso taas waxa ka sii daran waxyaabo kale oo xadgudub ayaa ka dhaca xadgudubkaas oo gaarsiisan ilaa la dilo oo waxna loo raacan marka waxay la tahay annaka gabdhahan waa sharafkeeni waa karaamadeenni caa'ilada guriga gabadha ayaa sharafkii caa'ilada haysa karaamadii ummadana ayada haysa marka gabdhahan in lagu farxumeeyo oo lagu dulaysto wadanka Sacuudiga annaku raalli kama noqon karno dawladana waa ka xunnahay meeshaas inay qatif ka gashay inay ka noqoto intaan la gaarin intaan kumayaal ayna dhibaato la kulmin oo laga soo tuurin dabaqyo oo lugaha laga xirxiran sida doomadii midaan jaamacadda carabta waxay la tahay jaamacadda carabta haday sharci leedahay sharcigaas inuu dhowray ahayd laakiin waxaa muuqata jaamacadda carabta inay noo haysan inaan jaamacadda carabta ka tirsannahay kani runtii annaga qayladaanteeda maalmahanbo dhigayna ay ku soo dhacaysay maadaama arrin nagu cusub oo uguba ay ahayd hablo Soomaaliyeed oo shaqasiin wadamo kale oo weliba dunida carabta gaar ahaan boqortooyada Saudi Arabia in loo qaado halkaasna kafiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo tii hadda marka iyadoo awalba iska jiray shaqiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo Soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacadiyo oo dhinac kasta oo jirka oo sharafta oo maanta karaamada oo xuquuqda tacadiyadaasi waxaa soo geli kara waxaan diinta islaamka ku banaan marka qayladaantaasi safarada Soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan ayaga cabashadaasi ay soo
soo gaarsiinayaan meelaha iyaga isleeyihiin waa ay mudan yihiin inaad maartay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa annaga waxay nagu soo gaartay in maartay meelo adha iyo maartay gabdho soomaaliyeed oo la geeyey inay arrintaasi si runtii ay u taabatay xanuun badan.